Waxaa soo dhawaaday dhamaadkii Ukraine, kuwanina waa magaalooyinkeedii oo si tartiib ah gacanta ugu galaya ciidamada Ruushka. Zelensky wuxuu ku calaacalayaa wax kaloo noo furan ma lahan inaan isdhiibno maahane. Qaysarka hogaamiye Ruushkana wuxuu isku diyaarinayaa sidii uu caasimadda Kiev ugu darsan lahaa dhulkiisa, boqortooyadiisana ugu sii fidin lahaa dhinaca galbeed ee Yurub. Sidoo kale, mid ka mid ah madaxweynayaashii soo maamulay Ruushka ayaa isagana soo jeediyey qorshe lagu soo afjari karo dagaalka Ukraine, dood badanna dhaliyey. Kuwanina waa shuruudaha ay Kiev soo gudbisay si ay u sii wado dagaalka ay isaga difaacayso Ruushka. Dhammaan qodobadaas xiisaha leh iyo xogo kaloo dheeraad ah waxaad ka heli doontaan warbixintan ee nala socda ilaa dhamaadka. Hana ka iloobina muuqaalka inaad like saartaan si uu meel fog u gaaro. Mahadsanidin. Haddii aan helin taageerada Mareykanka, waan isaga baxaynaa dagaalka, waan isdhiibaynaa. Waxaa sidaas si cad u yiri madaxweynaha Ukraine Zelensky. Waxaana hadalkan uu ku yiri waraysi aad u dheer oo uu siiyey wargeyska Washington Post ee ka soo baxa Mareykanka. Zelensky wuxuu aad u dhaleeceeyay Mareykanka, kaasoo ku cidleeyay dagaalka ay kula jiraan Ruushka. Inkastoo Biden uu Koongareeska ku cadaadiyey inay ansixiyaan sanad milatari oo cusub oo loo diro Kiev, balse madaxa Koongareeska Mike Johnson ayaa codsiga Biden dhowr bilood dib u dhigay. Intaas kadib Zelensky oo aad u careysan ayaa taleefanka gacanta ka wacay Mike Johnson, wuxuuna ugu warbixiyey sida ay xaaladda ugu adag tahay, isla markaasna aysan u sii awoodi doonin in ay hor istaagaan ciidamada Ruushka ee ku soo siqaya, iyo sidoo kale in Ruushka uu qarka u saaran yahay in uu ka qabsado magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah, gaar ahaan iyadoo ay jirto in Putin uu aad u kordhiyey tirada ciidamadiisa ka dagaalamaya gudaha Ukraine. Putin kama dhagala'a waxa socda iyo sida ay xaaladdu ugu xun tahay. Zelensky wuxuu doonayaa inuu si degdeg ah uga faa'iideysto fursaddan dahabiga ah ee hortaala, maadaama taageeradii Mareykanka iyo reer galbeedka ay sii jireen Kiev u wareejiyeen dhinaca Israa'iil iyo dagaalka Gaza. Putin wuxuu hadda ciidamadiisa ku kordhiyey guutooyin cusub oo dhowr ah iyo qalab cusub oo casri ah si uu gacanta ugu dhigo dhammaan magaalooyinka Ukraine oo ay Kiev ku jirto. Dhinaca kale, Zelensky waraysiga uu siiyey Washington Post wuxuu ku yiri maqnaashiyaha taageerada Mareykanka waxay ka dhigan tahay in Ukraine aysan haysan nidaam difaaceed dhanka hawada ah, gantaalada Patriot, iyo sidoo kale nidaamyada lagu carqaladeeyo gantaalada iyo diyaaradaha dagaalka ee loo isticmaalo dagaalka elektarooniga ah. Sidoo kale, ma haysano madaafiic nagu filan. Sidoo kale wuxuu leeyahay Mareykankow mana dayrin doontaan in Ukraine ay sii wado dagaalka, waxay ku xirnaan doontaa hadba inta ay la eg tahay taageerada iyo gargaarka milatari ee ay ka hesho Mareykanka iyo reer galbeedka. Annagana inaan idiin soo gudbinno warbixino iyo xogihii ugu dambeeyey ee caalamka waxay ku xirnaan doontaa sida aad noo dhiirigelisaan, nooguna taageertaan like-ta, share-ta iyo commentiga. Mahadsanidin. Yallah, aan u gudagalno warbixinteena. Su-aashu waxay tahay, Mareykanka, Zelensky iyo Ukraine ma ku sii fiirsan doonaa xaaladdan? Labadii sano ee u horreysay dagaalka, Mareykanka wuxuu ahaa taageeraha ugu weyn ee hubka iyo saanadda milatari siiya Kiev. Muddadaas, Washington waxay Ukraine siisay gargaar milatari oo ku kacaya ilaa $113 bilyan. Taageeradan dhaqaale waxay isugu jirtay mid milatari oo toos ah iyo mid aan toos ahayn. Sanadkii koowaad ee dagaalka Ukraine, Washington waxay Kiev siisay saanad milatari oo qiimaheedu dhan yahay $145 milyan. Sanadkii xigayna $189 milyan. Sidoo kale, lacagtan ayuu Mareykanka ugu talagalay in ay Kiev u kaashato dhinacyada caafimaadka iyo maalgelinta safaaradaha ay Ukraine ku leedahay dibadda. Inkastoo taageeradaas waalida ah Mareykanka uu siiyey Ukraine, haddana muddooyinkii ugu dambeeyey taageeradaas aad ayay hoos ugu dhacday, gaar ahaan markii ay carqaladeeyeen xubnaha Koongareeska ee ku matala xisbiga Jamhuuriga. Sidoo kale, Koongareeska ilaa iyo hadda ma meel marin dalabka Biden ee la xidhiidha in saanad milatari loo diro Ukraine, taasoo ku kacaysa $60 milyan. Dalabka Biden ayaa weli ku go'doonsan gudaha Koongareeska tan iyo sanadkii lasoo dhaafay, sababtoo ah xubnaha Jamhuuriga ku matala Koongareeska ee aadka u taageera madaxweynihii hore Donald Trump ayaa ku doodaya in ay jiraan xaalado kale oo dhinaca ammaanka ah oo Ukraine ugu muhiimsan dalkooda, sida taageerada Israa'iil iyo dhibaatada ka taagan xuduudka ay la wadaagaan Mexico, gaar ahaan dhibaatada dhinaca muhaajiriinta. Dhammaan tallaabooyinkaas aan ka soo hadalnay waxay dhabaha u xaarayaan in Mareykanka uu Ukraine ku fiirsado dagaalka ay kula jirto Ruushka, uuna sii wadi karin taageerada milatari iyo mid dhaqaale ee uu siiyo. Dhinaca kale, hoos u dhaca taageerada milatari ee ay heli jirtay waxay sii kordhinaysaa dhibaatada haysata Kiev, gaar ahaan xilli ciidamada Ukraine ay u baahan yihiin hub cusub si ay isaga difaacaan weerarada culculus ee Ruushka. Haddana waqti xaadirkan waxay wajahayaan niyad jabkii ugu weynaa, taasoo ciidamada jooga difaacyada hore ee jiida dagaalka ku qasbaysa in ay dib uga soo gurtaan maalinba maalinka ka dambeysa. Sida uu daabacay wargeyska Wall Street Journal, taliyaha ciidamada milatariga Ukraine Oleksandr Syrskyi oo qayladhaan u dirsanaya reer galbeedka ayaa wuxuu leeyahay
ciidamadeena waxay ku dagaalamayaan rasaas iyo madaafiic ay suurtagal tahay in ay xilli walba ka go'do, laakiin labada dhagood ee Maraykanka midna dhoobo ayaa ka buuxda, midda kalena wax kuma maqlo. Sidoo kale wargeyska Washington Post oo soo xiganaya mas'uuliyiin ka tirsan saraakiisha Maraykanka ayaa saadeeliyay in haddii aan si degdeg ah saanad military loogu dirin Ukraine ay qarka u saaran tahay in ay isdhiibto. Sidoo kale majalada Economist ee ka soo baxda Ingiriiska ayaa daabacday in Ruushka uu qorsheynayo in uu dhowaan weerarkii ugu xoogganaa ku qaado Ukraine, gaar ahaan marka la gaaro xilliga kulaylaha, taasoo la mid ah sidii uu sameeyey sanadkii lasoo dhaafay. Sidoo kale siday daabacday majalada, awoodda Ukraine ay u leedahay in ay markaan iska difaacdo duulaanka Ruushka sida ay sameysay sanadkii hore waa mid aad u yar, waxayna u baahan tahay in reer galbeedka iyo Maraykanka ay si degdeg ah ula soo gaaraan saanad military. Laakiin xulafada Kiev hadda waa kuwo ku kala qaybsan kuna mashquulsan dagaalka Gaza ka socda iyo sidii ay taageero u siin lahaayeen Israa'iil oo ay xaaladdu ku xun tahay. Dhinaca kale, Washington waxay ku mashquulsan tahay doorashooyinka madaxweynaha ee fooda nagu soo haya ha ka reebin iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee haysta Maraykanka iyo Yurub. Sidaas darteedna Kiev waxay dareemaysaa in ay ku khasban tahay in ay wadahadalo la furto Ruushka, iyadoo weliba raaci doonta in ay aqbasho shuruudaha Moscow. Dhinaca kale, Larry Johnson oo horey u ahaa falanqeeyo ka tirsan laanta sirdoonka CIA-da Maraykanka ayaa xaqiijiyey in wadaxaajoodayaasha Ukraine ay miiska wadahadalka la fariisan doona dhigooda Ruushka uu wadahadalkaas ku soo dhammaan doono in Ukraine ay isdhiibto, sababtoo ah wuxuu cuskanayaa in Ruushka uusan ahayn midka ku khasbanaan doona in uu wadahadal dalbado, maxaa yeelay Ruushku wax khasaare ah kuma qabo dhulka uu hadda dagaalka ka socdo. Sidoo kale waxaa sii kobcaya dhaqaalihiisa, awoodna wuxuu u leeyahay in uu buuxiyo baahiyaha ciidamadiisa jooga furimaha dagaalka. Tusaalaha ugu fiican ee aan u soo qaadan karnana waa wixii ka dhacay magaalada Avdiivka. Ciidamada Ruushku waxay ku dul socdeen meydadka ciidamadeena dushooda, waxay haystaan madaafiic ka badan kuweena 10 laab. Wadada keliya ee noo furan waxay ahayd in aan isdhiibno. Sidaas waxaa yiri taliyaha ciidamada Ukraine ee ka dagaalamaya magaaladan, kaasoo cadeeyay in ciidamadiisa uu ka saaray magaalada una geeyay magaalooyin kale oo ammaan ah oo ay horey ugu sii diyaarsadeen in ay u ruqaansadaan haddii ay ku soo fashilmaan difaacidda magaalada Avdiivka. Dhicitaanka magaaladan sababta ugu weyn waa in ciidamada Ukraine ay waayeen taageeradii reer galbeedka iyo Maraykanka, waana sababta uu hadda u qaylinayo Zelensky, kaasoo si cad u sheegay in haddii aan laga soo gaarsiin oo aan lala soo gaarin rasaas, madaafiic iyo saanad military in ay isdhiibi doonaan. Haddaba ma la dhihi karaa Ukraine waxay u dhowdahay in ay noqoto Polandtii oo ka bilowday dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii ay la wareegeen ciidamadii Hitler? Sidoo kale ma la dhihi karaa Putin wuxuu ku socdaa wadadii Hitler oo wuxuu doonayaa in uu ballaariyo imbaradoriyadiisa cusub? Aragtidiina nagu soo hagaajiya qaybta commentiga. Mahadsanidin.